dunida aynu maanta joogno dadku materialist buu noqday sida ogeed madaahirta aad ugu weyn quruxda isqurxinta jamaalka iyo wixii la mid ah halkuu jamaalku ka joogaa maalan shareecada waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo zaahir bin alxaraam nin reer miyiya buu ahaa oo ashjaciya qabiilada khatafaan la yidhahdo ka mid ah waxaa nin baadiya markuu ka yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan markuu u yimaado had iyo goor ama turfuu sheegi jiray turfadu waa wax nebiga farax geliya oo ka warramo hadiyadna wuu keeni jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baadiya uga keeno waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka uu ninkaasi baadiya ka yimaadee magaalada yimaado hadhow markuu anbabaxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu anbabixin jiray wixii uu magaalada kaga baxayo ayuu siin jiray markaa si awgeed buu nebigu wuxuu lahaa ina zaahiran baadiyatuna wanaxnu xaadiruuh zaahir waa reer miyiga iyaga annaguna magaalo jooggiisii baanu nahy yacni isna waa ninka baadiye noo jooga dhaqanku wuxuu iska ahaan jiray dadka baadiyo hadiyadday keenaan subag iyo caano iyo xoolo iyo wixii la mid ah hadhow markay magaalada ka baxayaanna dhar iyo kaba iyo wixii la mida in la siiyo maalin maalma ka miduu yimi zaahir muuqaalkiisa marka la eego waxaa la yidhaahdaa nin foolxun buu ahaa dabeetana magaaladuu yimi isagoo suuqii wax lagu kala iibsanaya joogoo wax gadaya iibinaya ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo aan arkayn buu dhabarka kaga wayo saa u qabtay ma arka zaahir ciddan dhabarka ka timee qabatay man haada arsilnii buu yidhi war waa kuma isii daa buu leeyahy kadibna markuu jalleecay wuxuu arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu isku nabay nebigu markaa intuu saa u qabtaybu wuxuu leeyahay war yaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabdi buu nebigu yidhi war addoonkan yaa iga gadanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo la kaftamaya addoonkan yaa iga gadanaya zaahir baa markaa hadlayo wuxuu leeyay yaa rasuula allahi idan wallaahi tajidunii kaasida ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii oo haddaad igadda buu yidhi kaasidku yacni waxa weeyaan waan kugu fadhiisanaya maxaa tidhahdaan tijaarada markay kaa socon weydo suuq loo waayo aniga cidinay gadan maysa buu leeyahy ninkayga zaahir ah cidi kaa gadan maysa ilaahay rasuulkiisiiyo waa igu baaraysaa ama waa igu fadhiisanaysaa ama ma layga kaa gadanaya buu leeyahy nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lakin cinda allahi lasta bikaasid ama anta cinda allahi qaal xadiidku shamaa'il almuxamadiya buu ku yaallaa waana xadiis saxiixa say culammadu sheegeen wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid aan gadmaynin kama tihid buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadday bini aadamku muuqaalkaaga u arkaan inaad gadmaynin lasta bikaasidin cinda allahi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan quruxdu iyo jamaalka iyo muuqaalkan sare alle agtiisa waxa qiimaha kule maaha saynu u kala qurux badanna ilaahay uguma kala dhowin saynu u kala cadnahay uguma kala dhowin ilaahay agtiisa wax kalaa qiimo ka leh sida ogeed baa xadiidkii imaamu muslim uu warinayay wuxuu nebigu leeyahy ruba ashcaha madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi la abara wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ruba litaqliil aw litakhiir ruba ashcaha la arkee mid basaasaysan timihiisa iyo wixiisu aanay feedhnayn ama shanlaysnayn oo basaasaysan oo madfuucin bilabwaab buu nebigu yidhi albaabada aan laga furin yacni waa miskiin ama waa kan la yidhaahdo aan ahayn dadka loo hashhashleeye albaabka loo furo aan ahayn laakiin haddana nebi maxamed muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam low aqsama cala allahi la abara hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wuu u rumaynaya hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa sidii uu u dhaartay baa ilaahay u rumaynaya
يعني النبي وحط المامي عليه الصلاة والسلام مركا وحا إذنكو وحكو قيمين إيسان إدتك كو قدرين إيسان إنانو أهين ألا أكتسا وحا وحلقو قدرين إياه ساو قد مدى إذن إدوك البابك كفرين وموقال كيسا سريانو أهين موقال دتكو أي سود ويان أيها هدنا إلهي أكتسا وحو كقارسي سي مقامك هدو ألا كل دارتو إن إلهي سبحانه وتعالى دارتي سور رمينيو يعني وحي لنا مجتمعي مسلم كاها markii uu ku dhacay cultural revolution waxay wax ku qiimeynayeen siday wax u arkayeen iyo maadada adduunku qiimo la laha markuu isbedelay ay noqdeen wax kale wax bini'aadamka lagu qiimeeyaa lagu kala horumariya ee dadku ku baratamayaan markaas bay sameeyeen xadaaraan dunida soo marin xadaaraan dad kala sareeya lahayn oo aan isxaqiraynin oo aanu quruxda iyo midabka sare qiimo ka joogin saawgeed isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam masaa'ilkaasi xoojinaya xadiidka muslima kale waa ka ku tilmaamaya in allaha laa yanduru ila suwarikum walaa ila amwaalikum ilaahi subxaanahu wa tacaala ma eego muuqaalkiinna sida u egtiin ama xooliinna ama waxaa haysataan walakin yanduru ila quluubikum wa acmaalikum إلهي وحو يقى قلوبتنا وحا كجرة إيمانة الله كعبسية التقوى أخلاق فعنية وحا قلبي قيدن كجرة الرميسنتين إيا وحا يدن كسوفولية أعماله وحا يدن كسوفولية عمله نوعوية هاي إيا وحا قلوبتنا كجرة كاسبار رب قيمة يا أبو النبي المامي عليه الصلاة والسلام ولذلك ما دام أنا مظاهرته قيمة الله لهين المعرور بن السويد تابعي اللي ورنشري ورقي معمران تكمده هايا بقولي لا تجرمي لها سقاري هذا علماء تاريخ يا وحيد وحن سفر وقصة مري أبي ذر السحابي اللي ورنشري وتولي ربض الله يرهد شوقه وحن صامر يقول يا أبو ذر حلة اسكتشوك حدن qofkii u shaqaynayayna isna isku joog la mid xidhan yahay riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan isku joogii buu qaybiyo midna isagu siiyay midna isaga kan baa xidhay waa Abi Dhar iyo qofkii u shaqaynayay shaqaalihiisa ahaa markaasaa la weydiiyo la yidhi waa sidee adiga iyo dee shaqaalahaagii soo idinkan isku waxa xidhan waxaa la eegayay dee isna waa saxaabadii waaweyneed ka mid ah iyo nin miskiina u shaqaynaya inaanay isku muuqaal noqonin bay iyagu eegayeen Abi Dhar baa wuxuu ku yidhi arrinkan waxaan u sameeyey buu yidhi wakhtigii nebigaan nin ismaagno aan caytannay markaasaa waxaan ku ceebeeyey buu yidhi hooyadii ina hooye madowya waxbuu ku yidhi dabeetana nebigaa wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa abaa dharrin أعيرته بأمه أبي ذر ومهويد وحكو عايس أبو لي إنك امرؤ فيك جاهلية وحط هاي قف ولي دقن كي دين تكهر وحيك جهرين إنك أستاذ مسلم طيب المسلمات هاي لكن وحنا بقول عليه الصلاة والسلام رقم دي جاهلية ده هراء ولي كماد وضمين من رواسبتي بربك وحدا يبون بقول المامية وروا ولا الذي يبون بقول إلهي قعنتي نسوق لي فمن كان أخوه تحت يده ونك ولالك يوم مسلم وشقاله ونغضه فليطعمه مما يأكل بنبول وروح أدعونا يسوح كسي وليلبسه مما يلبس وحات حدانا يسانا وحوحد ولا تكلفوهم ما يغلبهم شقق حق بدنها ودرين هذا سأدرتان عاوية ولقبت بنبول عليه الصلاة والسلام حديث كلفظ كان أخريوه بخاري لكن بخاري مسلم بقى وحديثك يالا إذن حديثك إنه تلمامنا وحي تلماميان ميزانكو إنانو هين موقالك يا مظاهر تصري سيدا قرح بدنتي أما وديرتي أما وعدهي إنانو هين ميزانك الشرعي هاي إنانو هين وحا حرمتهي يا سيدا يقول البدين إنانو هين وحا عند الله قيمها كتشوغا ميزانك الشرعي هاي ونبغى تلمامه وحويان وحا هيستين مال يا متاع وح لغما قيميه
طبقيات دقنتي قري بلارنو هكتر ركو فرديات شوكتا وها وحلقو ما قيمة نبغو عليه الصلاة والسلام قيمة كالو تلمامية values كان وحي نقول تلمامينا وحويان وحا كان أنو نبغو الردينية ووحا مبدأ قالكو وحكو قيمة قالوا سيدا وكلا تشابرون تبي وكلا سريسا سيدا لو كلا موقال قروح بدن يبقى الله يسوكو له هرماريا وماديين لكن دينتو تهمها سيدا وقالوا حشرتا قصة عانة سحابة جري اسنا رقام قروح دبضنين كم بدها وحنا هاي السنين مركواني ما قروحنا بدنين مال الدنيا لهين markaasuu nabigu weydiiyey julaybiib baa la yidhaha war julaybiibow maxaad u guursan weyday oo yaa ii guurinaya buu yidhi aniga maa la melihi yani baa ka muuqada een qurux laygu raacana igama muuqato gacantaydana wax kuma jiraan yaa markaa gabadhii guurinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu baxay qolo ansaara buu u tegey أنصارتي نمكي هامركو وتجا وحكوا يا فلان زوجني ابنتك وارهب لو قبض هذا يسجوري صحابته انت بدن ويش على ينحدد نبدا النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي محمد حديد لا يشان ولذلك والله إذا أنصاري هذا إننا أنصارتك كم إذا قبضوا قعدوا وحلها ميشري سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وقرسان لها ninkana waxaaba u yimi nabigiiyoo leh inantaada isiiyo ii guuri dabeetana nicima wa nucma caynin buu yidhi yacni waa erayo tilmaamaya si uu ugu faraxsan yahay waa dee khayr uu bushaaraysanayo waa waxay ku doogsataa buu leeyay nebi maxamed oo gabadh naga soo doonay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi إني لست لنفسي أريدها أنا أقول لفهيك ومدون يبو النبي عليه الصلاة والسلام كما كويدي سنة أنا أقول ما قفك قور سنة قال فلمن بيري إلهي الرسول كيسيو هدايا دوني سير جيجا كتاي قال لي جليبيب بو نبي بيري جليبيب بان إرقا واحي مركانكي وحي ومودي وحانا هين بصابحي markii hore go'aanka keligii baa iska qaatay markan wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisa balan salaantii la tashado arrinku hadduu julaybiib yahay aan salaantii ku noqdo xaaskii aan u tago hooyadeedan wax weydiiya buu yidhi wuxuu tagay islaantii inanta dhashay markaas wuxuu yidhi nabi maxamed baa gabadh inaga soo doonay calayhi salaatu wasalaam iyana sidii oo kale tidhi nicma wa nucma caynin وحي لكل دوكسته وبرار بيت الأدي نبي محمد بينه يمي عليه الصلاة والسلام مركز يقولي إلا فيه سيسقود دوني ماي قالت فلمن يريدها وهذا يورب بيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل يقود دوني قال لجليبيب جليبيب ورب أيكو يري قالت حلقة لجليبيب حلقة حلقا هدي ليلة هذا بيلادن وعنا حنون حلقة هدي ليلة هذا بيلادن بدون تنوين وحيرت وأرى يقول لك ما هلك السومالي دو بقى يلهدان أما بقى يا أما وحلم ده يعني وحيان رجين يسوي حانا حين أياكو صباحي سيد مودي سيسارة ما صباح ضي لا لعمر الله لا أزوج جليبيبا إلهي ما كل أرتي جليبيبا نقول نتيجة سين ما يبي سلانتي تري هذا مرة ده سلانتي كهرتمي وقعي مركو يصير حق النبي قبا عليه الصلاة والسلام إن أنت وي مغليسا وركن دح صعداء بهديه هو يدين أي حاجة دمك على هذا الشيء وحكوت لي وحندي ويديو يا إيجاكين صداني مركز لي الرسول كي إلهي عليه الصلاة والسلام سيتري أتردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره ومن النبي محمد بهذا الكوع لنسان مركه النبي محمد يدين يمو يري قبر دايسية مياه هدنا النبي علي نسان بي كتري
aniga nabiga igu wareejiye bay tidhi waayo nebi maxamed marnaba aniga i dayici maayo ee hadiidina warka nebiga calayhi salaatu wasalaam odagii islaantii inantii mas'aladii waa ka furfurtay dabeetana waa aqbaleen nebigu u yimi odaygiiyo wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiiba ilaahay rasuulkiisiiyow inantii waa ku siinay yani julaybiib iyo ciddaa doonaysa markaasi u guuri nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka axaadiista qaarkood waxay sheegayaan inuu u duceeyey calaa kulli xaal waa la dagaal galay julaybiib gabadhii waa loo dhisay waa la siiyey dabeetana ghazawaadkii nebigu uu galayay calayhi salaatu wasalaam ghaswo ka mida buu galay dagaalka markii laga soo noqday ayuu nebigu wuxuu yidhi tafqiduuna min axad yaa inaga maqan yaa la waaye markaasaa kolba nin la sheegaa hebel lama hayo hebel waa la dilay hebel lama hayo hebel waa la dilay dadkii siduu nebigu u lahaa tafqiduuna min axadin cid ma idinka maqan tahay ayaa markii dambe la yidhi may cid ima maqna markaasuu nebigu yidhi haddaba anigaa cid baa iga maqan oo yaa maqan ilaahay rasuulkiisu wuxuu walakinii afqidu julaybiiban fatlubuhu fi lqatla war anigu ninkii julaybiib ahaa baan la ahay ee bal dadka la dilay ka soo eega waa la baadi goobay waxaa la helay 7 gaaloo meydoo meel yaaliya isagiioo dhinac yaalla waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisii halkaasaan ugu tagnay 7 meydoo gaaladiina waa yaalin isna wuu yaalla aqatala 7 ثuma qataluu haada minii wa ana minhu buu nebigu ku celceliyey ma 7 dilay markaasay dileen kaasi waa iga tirsaya anna waan ka tirsanay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam haada minii waana minhu riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu 3 jeer ku celcelinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana waa la soo qaaday nebigu gacmihiisuu u dhigay isagaa hayay intii xabaasha laga qodayay oo dhan nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisuu barkanaa markii xabaashii loo dhammeeyey baa la xabaalay axaadiista loo daliishado shahiidka inaan la maydhin julaybiib waa nin faramaran buu ahaa nin aan qurux badnayn buu ahaa saxaabi ansaariyu ahaa laakiin wuxuu nebigu ku qiimaynayaa maaha madaahirta maaha siduu u ekaa rajul qasiir damiim bay leeyihin laakiin qasriga iyo damiimnimada nebigu wax kuma qiimaynaynin hanti muxuu haystay ee wuxuu leeyahay haada minii waana minhu kani anuu iga tirsan yahay waa min jamaacati aniguna kooxdiisaan ku jiraa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam